السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو dhawaada asxaabta kuna soo dhawaada muuqaal cusub magacaygu waa Sweer kanaalka daawanaysidna waa Kamil Technology muuqaalkeena maanta waxaan ku soo bandhigi doonaa siraha WhatsApp-ka oo aan dhamaantiin wada isticmaalno ayaa waxa ku jira siro aad u fara badan kuwaas oo ayna dadka intiisa badan aysan isticmaalin haddaba waxaan ku leeyahay muuqaalkan waa muuqaalkaagii si daawo ilaa iyo dhamaadka ka hor intaynaan muuqaalkeena guda gelin waxaan ka codsanayaa tamarkii ugu horeysay yaad kanaalka soo booqatay inaad subscribe noo saarto soo kale aad muuqaalka la gareysid aad iyo aad baad maasatahay waayahay asxaabta muuqaalkeena maanta aad ayuu xiiso badan yahay muuqaalkeena maanta waxaan diiradda saari doonaa ku soo bandhigi doonaa ku sharxi doonaa siro ku jira WhatsApp-kan aan isticmaalno ma ogtay WhatsApp-kan aan isticmaashin inay ku jiraan siro fara badan oo aadan weli ogeyn haddaba muuqaalkan maanta waa muuqaalkaagii si fiican oo la soco inta badan waxaan aragnaa dad online-ka iska xidha oo xilli ay khadka ku jireen iyo xilli ay ka baxeen toona aynaan arag waxyaabaha noocaas ayuu barnaamijkeena maanta la xiriira tusaale ahaan qof baa fariin u diraysa fariinta qofkaaga ma soo jawaabayo sida tan oo kale sida caadada ahba qofka markaan fariin u dirno ee uu fariinta eego waxa inoo cadeeya calaamadda tigta bluega ee labada sidoo kale sida caadada ahba qofku markuu codka dhageysto waxa lagu gartaa mikrofoonka ayaa blueg noqday sidoo kale codkuna blueg ayuu noqdaa fariin markay noqotana qofku fariinta markuu arko labada tig ayaa blueg noqda sidaas oo kale laakiin qof baad fariin u diraysaa fariintii ma eegayo kuma soo jawaabiyo sida tan oo kale haddaba sidee ayaad ku ogaan kartaa inuu qofka fariintaada eegay oo uu dhaafayo iyo inuusan weli eeginba haddaba barnaamijkeena maanta waxyaabaha nooca ayuu ku saabsan yahay hadda kadibna qofna baryimaysid oo ku odhanmaysid iisoo jawaab qof walba waxaad arki kartaa in fariintaada eegay iyo inuusan eegin inta madan waxaa nagu dhacda qofku markaan fariinta u dirno wuu eegaa laakiin inagu ma aragno inuu eegay iyo in kale waxyaabahaas ayay nagu khalkhaliyaan haddaba sida qofkan oo kale aniga imika waan u diray fariintan intaan markii hore fariintaa u diray wuu isoo jawaabi waayey haddana fariinta kale ayaan u diray haddana iima soo jawaabin ilaa haddana kama hayo wax hadala qofkan waa online waan arkaa inuu online yahay laakiin muxuu iigu soo jawaabi laayay muxuuse damacsan yahay haddaba sideen ku ogaan karaa qofkan in fariintayda eegay fariinta waad xaajinaysaa markaad xaajisid kor ayaad u baxaysaa xaggaa sare aad aadaysaa calaamadaa sare kor u jeedaya taabanaysaa calaamadaa sare markaad taabatid qofku fariintii aad u dirtay waxaad u dirtay kowdii iyo barhkii hal mirir ayaan u diray qofka fariinta kadibna waxa fariintu ay u gasho qofkan ay gudubtay kowdii iyo 1:30 barhkii hal mirir kadibna qofkan fariintu way u gudubtay wuuna akhriyay wuuna ka gudbay u dhaafay waliba inuu soo jawaabin balan ka noqono sidoo kale codkan hadii aan eegno qofku inuu dhageystay sidaan aragno codkan wuxuu noola muuqdaa inaan wali la dhageysan oo qofku uu dusha kaliya ka arkay laakiin inay u gashay laakiin uu dhageysan codkan xajinaynaa inagoo isdhibin calaamadii xagga sare aan ku noqonaynaa calaamada ay ku noqonay inagu isdhibin qofkan delivered seen played way u gudubtay wuu arkay wuuna dhageystay malayna waaliya adeer ayna waadi maayo yaan lagu khiyaamin islaali dadka intooda badan way isticmaalaan laakiin inta og ayaa yar waxyaabaha noocanna hadda kadib iska ilaali yaan lagu sarin qofkan fariintan hadii aan eegno hadda codkan hadaan ku noqono mar labaad tusaale ahaan codkan hadaan ku noqono waxaan aragnaa inuu dhageystay codka inuu arkay 1:30 mirir ka hor laakiin xilligii uu arkay iyo xilligii uu dhageystay codka mid toona ma aragno laakiin waxa inoo muuqata kaliya inuu fariintan ay u gudubtay inuu arkay iyo inuu dhageystay hadda ka noqono imika waxaan aadaynaa codkan kale ayaan aadaynaa codkan san ayaan isna xajinaynaa kadibna waxaan tegaynaa calaamadii markaan sida tan u tagno
waxaan aragnaa qofka inaan fariinta inagu dirnay 1:28 fariintuna isaga ay u gudubtay 1:28 una arkay wuxuu arkay today maanta oo ahayd 1:29 wuxuuna dhageystay isla 1:29 hal marir ka hor bay u gashay hal marir kadibna wuu arkay oo wuu dhageystay laakiin wuu dhaafayaa qofku fariintaada inuu dhageystay laakiin adigu ma arkaysid sida tan oo kale marka hadda kadib lagu gaadi maayo u maleynayaa qofka walbo fariimaha ku soo jawaabi waayna sida tan ayaad sameynaysaa fariintaad xajinaysaa fariinta qofka aad u dirtay waad xajinaysaa dad uu ku soo diray maaha taad u dirtay oo kaliya xajinaysaa kadibna calaamadii ay tagaysaa ay kor jeedi kadibna waad arkaysaa macluumaadka oo dhameystiran sidoo kale haddii group tahay groupka fariinta aad u dirto kaliya waad xajinaysaa kadibna calaamadii ay tagaysaa waxaad arkaysaa inta qof ee aragtay fariintaada oo dhan ay xagan hoose kugu soo dhigmay macluumaad dhameystiran barnaamijkan waxaan maleynayaa inaad wax badan ka faa'iiday hadda kadibna layna khiyaami maayo layna waali maayo dadku waliba inta badan waxa dadka isticmaala GB WhatsApp waxyaabaha noocan oo kale GB WhatsApp ayaa lagu isticmaalaa WhatsApp-kan kale ee caadiga normalka inuusan lahayn baan filaya haddaad muuqaalada noocan jeceshahay insha Allah waan soo badin doonaa siraha WhatsApp-na xabidan oo kaliya maaha ciida ay ka badan yihiin insha Allah muuqaalo kale oo ka fiican oo soo wadnaa muuqaalkan dadka like saar sidoo kale u share galay asxaabtaada oo saaxiibkaaga qaaliga la wadaag suisna waxaad ka faa'iido wax leeg isna uga faa'iido aad iyo aad baan maasnada dad muuqaalka like saar sidoo kale u share galay asxaabtaada kanaalka dad ku cusubtayna subscribe saar waa muhiim subscribe taadu waxaan ku leeyahay tan muuqaalka xiga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa wasalaamu alaykum waraxmatullaahi taala